wararka laga helayo magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka Jubbaland waxay sheegayaan in goordhaweed weerar ku bilowday qaraxyo uu ka dhacay hotel Cascasey oo ku yaala bartamaha magaalada Kismaayo. weerarka oo qarax ismiidaamin ku bilowday kadib waxaa xigay rasaas xooggan oo iswadaarsanayeen maleeshiyaadkii weerarkaas soo qaaday iyo waliba ciidamada ammaanka Jubbaland. qaraxaas ismiidaaminta kadib qaraxyo kale ayaa laga maqlayay hotelka Cascasey. hotelka ayaa waxaa ku sugnaa xubno ka tirsan wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamulka Jubbaland. sidoo kale dad shacab ay halkaas u tagay inay ku damaashadaan xilligii oo ahaa xilli galaba isla markaana maalintu ay ahayd Jimco. rasaas xoog leh ayaa laga maqlayay gudaha hotelka Cascasey ee magaalada Kismaayo. ciidamada ammaanka Jubbaland ayaana waxay doonayaan inay xaqiijiyaan ammaanka hotelka oo la sheegay in maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday ay gudaha u galeen. lama oga khasaaraha dhabta ah ee laga helayo hotelkaasi ku yaala magaalada Kismaayo oo dib loo hubasan ay weerarkaasi ku qaadeen. lama oga ilaa hadda kooxda weerarkaasi qaadaasa ah tilmaamaha ammaanku waxay ku holan yihiin xaqiijinta ammaanka hotelka la weeraray. magaalada Kismaayo ayaa waxay u diyaar garoobaysaa qabashada doorashada hoggaanka maamulka Jubbaland. waxaa sii gaaray muddooyinkii ugu dambeeyay musharaxiin wadamac uga jiro inay xilkaasi hantaan. sidoo kale waxaa lagu holanaa soo xulista xildhibaanada iyo qaabkii loo wajihi lahaa. hase ahaatee weerarkan ayaa waxa uu ka dhacay mid ka mid ah hoteelada ugu caansan Kismaayo oo ay dadku aad u tagaan.